السلام عليكم ويوسف شراء اسكو soo noqod wanaagsan I'm back waan soo noqday waxa weeye isku soo noqosho wanaagsan waqtiga waayahana kala waday waa halkii ay Soomaalidu ka dhihi jirtay adduun hawle kama dhamaato anyways waan soo laabtay waxana la soo laabtay waxyaabaha ay igu taqaaneen iyo inaan idin la wadaago fursado markaas u furan dhalinyarada Soomaaliyeed kuwaas oo daafaha dunida ka kala jira inta aan barnaamijka u guda galin talaabada koowaad oo aan qaadayna waxa weeye in dhalinyarada dhammaan muuqaalkan daawanaysa fadlan aad like iyo share iyo subscribe tirahdaan si aan engagement-iga sare uga qaadno maadaama aan YouTube muddo ka maqnaa algorithm-ku waa ilaa waa hawl dheer si uu videogan mar kale dadka feed-kooda u tago oo u soo hormuuqdo waa inaan engagement-iga sare u qaadno like-ta share-ta haddii aan subscribe orano weli subscribe dheh muuqaalkana la sii wadaag walaalaha aad isleedahay way ka faa'iideysan doonaan waa tahay waqti badan anoo aan idinka dhumin sababtaan ku maqnaa iyo waxyaabaha iyo waqtiga iyo waayaha aan sheegayo aan hore u guda galno fursadahaas markaas maanta in hor yaala iyo haddii Ilaahay ku ogol yahay hawlihii aad igu barateen maanta waxaan u kicitameynaa dhankaas iyo Germany waxaan isla eegaynaa scholarship aad hore dhowr jeer iga maqasheen DAAD scholarship DAAD scholarship waa scholarship ay dawladda German ku bixiso waa German Academic Exchange Service scholarship badan baa ku jira platformka DAAD haddii aad gashid oo find scholarship ku qortid oo waxa ka helaysaa scholarship badan laakiin maanta aniga focus waxaan saari doonaa haddii Ilaahay ma laba scholarship kan koowaad waa Helmut Schmidt Program Master Scholarship for Public Policy and Good Governance scholarship kan horeyna waa uga hadlay waa scholarship maadada Public Policy and Good Governance ee ka hadlaya loogu talagalay wadamada soo koraya waxa weeye goorta scholarship-ka linkigiisa YouTube-ka hoostiisana waa inuu dhigi doonaa afartan waxa ka helaysaa xogtii aad u baahnaydeen A ilaa Z iyadoo faahfaahsan oo furfuran kaliya waxay u baahan tahay qof akhriya xasha lilaahi waxaan eegnaa marka maanta current announcement-iga haddii Ilaahay ku ogol yahay wadamada loo ogol yahay hadda u timaadid waa kana list developed countries sadaas hoos ugu raacay shimrisid SACT Soomaaliya oo taxagaas fadhida announcement-kan hadda eegtid document-gan hore baan dhowr jeer u furfuray oo aan uga sheekeeyay waa scholarship-ka 2025-ka objectives waa barnaamijka aragtaan oo loogu talagalay future leaders-ka maadadu waa maada master maadooyinka masterka dabcan oo fieldigaas public policy good governance la xiriira waxaan xiran kara dadka undergraduate-ka haddii Ilaahay ku ogol yahay ka soo qalin jabiyo khibradda leh oo waxa weeye wadamada soo koraya soo kobcaya ka soo jeeda waxyaabo la fangareynaya meeshan ku qoran waxaas oo isha maraya dabcan waxa way ku daahimayo horena waa uga hadlay scholarship-ka qiimihiisa 934 baa la siinaya health insurance travel waxyaabahaas oo dhan baa la ka fangareynaya iyo luqadda Jarmalka qofku markaas baran doono processka application-ka da automated waxa weeye criteria DAAD inuu soo buuxiyo inuu qofku jaacada soo xareeyo inuu labada luqadood ku baranayo English iyo German uu garanayo waxyaabahaas way jaacadahana xog dheeri ka sii helaysa qaabka selection-ka waa kaas October ilaa November ba selection kala sameynaya haddii Ilaahay ku ogol yahay kadib qofka platformka DAAD buu ku guraya documentiyadii kadib sidaas looga bixinaya lacagtii December iyo January wixii ka dambeeyana waxa weeye haddii Ilaahay ku ogol yahay jawaabta ayaa soo baxaysa selection criteria baa meesha ku jira oo waxa weeye qofka academic-iisa professional-ka iyo motivation-ka waxyaabahaas la eegi doona haddii Ilaahay ku ogol yahay oo lagu kala xulayaa xirfadda luqadda waa la eegayaa waa muhiim application documents-ka qodob muhiim aan u nimaano documentida u muhiimsan waxa kamid ah DAAD application form-kiisa buuxisid motivation warqadii keentid CV-na keentid haddii Ilaahay ku ogol yahay shahaadadaadii iyo transcript-tii grade-kaaga sharaxaya keentid waxa kaloo lagaaga baahan yahay khibrad shaqo haddii aad soo samaysay inaad soo gudbisid proof inaad keentid caddayn inaad keentid inaad English ku hadli karayso shahaado English keentid iyo references-kii macallimiinta scholarship waxa uu furan yahay June koodeeda ilaa 31 July laba bil buu furan yahay June wali waqti badan baa ka dhiman xaasha lilaahi marka bishaas waxaad sameyn kartaa inaad si diyaarisid document-yada si fiican u baratid waxa lagaaga baahan yahay wax ka dhimanayo waxa weeye adoo diyaar u markaas scholarship ku furma kadibna aad ku xareysid sidaas application-ka online baa lagu xareynayaa haddii Ilaahay ku ogol yahay jaacadaha lagu ogol yahay waa toddobadan jaacadood social protection oo university oo applied sciences Bonn jaacada labaad waa Duisburg SN waxa department of governance public policy waa ku xigta waxa peace and conflict studies jaacadaha toddobadaas way jaacad kastana dartina furtid oo kale waxa weeye right click basina linkigeedu saas ku furmo peace and conflict iyo kala daadaan furmo idan jaacad toos noo geynaya jaacada SN hadaan furmo iyadana saas noo geynaya jaacadihii marka goorta furtilaana scholarship-ka xareyntiisa jaacadaha ka soo bilaabaysa jaacada baad tagaysaa page-keeda jaacada page-keeda goorta tagtid oo kale application oo kale hadaa tagtid waxa ku arkaysaa DAAD scholarship
dad scholarship baa ku dhufanaysaa dad scholarship waa kana xogtiisa dhammaystiran baa ka helaysaa jaamacaduna ay ku sheegayso inuu June ilaa July furan yahay waxa weeyaan wixii technical issue emailka kala soo xiriir documentida ka rabaa kuwa inaan dad formkiida buuxisid kuwa hadda ka soo hadalnayo kala way inaad TOEFL iyo IELTS baa ku jira xagaan oo ay grade ay ka doonayaan ku jiraan hadana waxay ku yiraahdeen application goorta wixii dhan soo dhameysad one single PDF baa ka dhigaysaa emailkaas ku diraysaa instruction-kii dhan baa xagaan ka helaysaa ma garata markasta eeg jaamacadda xareena sidii kuliyadda xareena sid tan oo kala hadda u nimaano peace and conflict studies marka tan oo kale hadda u timaadid barnaamijkan raadinayna waa kana Helmut Schmidt program isaga ku sii dhufanaysaa xogtiyo dhan xagaan ku jirta qaabka jaamacaddu xareena sid requirements kale laga baahan yahay sida luqadda oo kale application ku waqtigu u furan yahay ilaa tan oo kale 15 July bay furan tahay in sida wax ugu diraysid marka waxaan filayaa fahanteen taas oo jaamacad ka saas kala u firaysid si eegaysid hadii la ku ogol yahay kadibna aad sida ku diraysid marka muuqaalo hore baan ka sameeyay dad Helmut Schmidt oo hadda YouTube ka goorta timaadid waa kana dhinacana waxa way manaysaa playlistiga hadda Germany ka eegtid scholarship-yada Jarmalka baan ilaa 7-8 xab ka sameeyay dabcan mid kamid ah fiidiyoyadaasna 1 iyo 2 part 1 iyo part 2 waa dad Helmut Schmidt oo aan ilaa zad u sharaxayo qaabka u xareyn karaysid marka scholarship-kan marka furtid waa fahantid hadda rabtid qaabka loo xareeyo step by step video cusub ka sameeynaya xaasha lillahi kii hore waa dhoobana isla waxba iskama bedel waa isku qaabkiye xaga ka akhrista wixii su'aal oo qabtaan inaan fahmin oo mugdi idinka jirana qaybta commentiga igu soo weydiiya ama groupkeena Telegramka ayaad isigana aan soo dhigi karaysan hadii ilaahay idmo waa tahay kaas wuxuu ahaa scholarship-ka koowaad oo ah dad Helmut Schmidt good governance and public policy scholarship number 2 haddaan eegno isagana waa scholarship kale oo dad ay bixinayso isagana magaciisa la yiraahdo development related postgraduate courses ama EBOS loo soo gaabiyo scholarship-kan ayaa isaguna sanad kasta la furaa list of eligible countries ka hadda eegno waxa weeye waa kana Africa dad hoos u raacid Soomaaliya oo taas xagaas ku jirta marka development related isagana waa scholarship saas oo kale target ka dhiganaya wadamadaas soo kobcaya kaasoo siinaya kan hore wuxuu kaga duwan yahay kan master iyo PhD uu leeyahay doctoral marka labadaas level buu leeyahay graduate-ka marka qofkii xareynaya PhD iyo master ba scholarship-kan waa uu xareyn karaa xoog dhameystiran baan meeshan ku qoran oo waxa weeye dad application requirements ka waa eegi kartaa waxa si eegin kartaa procedure-ka loo marayo oo hadii ilaahay ku ogol yahay isaguna si clear u sharaxaya marka overview-ga kala hadaan si guud u dul marno oo kale waxa weeye waa 12 bilood ilaa 42 waa dabcan masterka 42 biloodna waa dadka PhD-ga xareynayo kale value-ga kale waa kana isagana billaha dadka masterka intaas ay helayaan dadka PhD-ga xareynayna waa 1300 waxa weeye health-gii travel allowance-gii waxyaabahaas dhan baa laga kofar gareyn doona hadii ilaahay idmo xoga dheeri hadaa rabto barnaamijka kuliyadihiisana ka sii ogaatidna linkigaana ku dhufanayso si baaraysa laakiin midka muhiimka waxa weeye ay tahay markaas inay isku haysid list of all postgraduate courses with application deadline 2025-2026 documentigana waa ii furan yahay waa kana xaggana marka waxa ka helaysaa kuliyadaha furan programmada furan waqtiga ay xirmayaan jaamacadaha bixinaya jaamacadaha soo la xiriir lahayd marka documentigan PDF kaas markaas soo furo zoom soo dheh hadii la ku ogol yahay isha mari ma garat marka barnaamijkan kale master program in international development economics hore baa u raacaysa English buu ku baxaya waa master 17 bilood weeye bisha 8-31 sanadkan ku jirnaa 4 u dhacaya haddii rabtid inaad jaamacadii aadidna linkigaas kaliya blue-ga baa waxaad right click siinaysaa jaamacadii buu isku geynaya hadda fiiris scholarship-yada kale ku xigana qaybtood waxa weeye kan wuxuu furan kuwan waxa weeye kooda bisha 10aad ilaa 15 bisha 11aad 2024 furan yihiin waa development marka theme-ka ku kala dooran kartaa ma hadda qolada u horeyso kale waa economic and sciences qolada xigta waa development cooperation engineering related sciences regional and urban planning agriculture and forest sciences natural and environmental sciences medicine and public health ma ku jira oo waxa weeye master in research iyo hal PhD leh marka saasa u kala dooranaysa social sciences education and law hadda eegtidoo kala wax labadan kuliyadood kaliya ku jira hadii la media studies na international media studies kala qof baa media mar weydiinay 2025 bis saddexaad bay xirmaysa marka waqti dheer qofkan oo kala haysta maybe sana dugsiyadka 2026 kale inuu bilaabo hadii uu programka xaray marka goorta right click siisid
أنا دي لا كو قولي هاي جاعدي وكو كينيا كي هرا أنفرني وكان برنامجي وكو كيني برنامجي مركا حاجانا حوجتيسي دنك سي بارسا وعلى حرير سوي سؤال قبتيد وحي information أي كوسيان هدي لا كو قولي هاي ما قرأت مركا جاعد admissions كده قولتها تكتب طبعا مركز صح كهلسا داد باكهلسا ما قرأت marka jaacadana saas oo kale iyadana waa tan hadaad scholarship baad tagaysaa hadaad scholarship markaa tagtid ama website-kii uu kulaaba ku leeyahay ama xogo kooban oo jaacadu bixisay ku siinaysaa jaacada kale baad hadaa fiiriso aan furnay master degree-gii iyadana saas oo kale education training insight wixii markaas xogo dheeriya baad halkan ka baaraysaa khaasatan daadba aad u sii eegaysaa haddii ilaahay ku ogoliyo applicationka oo kale badanaa laga helaa xogaha la xiriira scholarshipka iyo saa u xareyn karaysid marka waa kana scholarship-yada wax ka dhexelaysa daad baa ka dhexelaysa marka jaacadii meediyi aagtid kulliyadii meediya oo kale marka ha mogaaninayna markasta saas oo kale u furtaan jaacad kasta oo aad sii baartaan oo jaacadaas la xiriirtaan kor haddaan ugu soo laabanana dee saan idin sheegay waa kuliyadaha kala duwan mid kasta deadline-kiis xaggaas ka qoran yihiin master waa master caadiya master research oo aad dee masterkiiba focuska badanaa uu shaqadaadu badan ay ahayd ee researchka ahayd MBA waa master business administration PhD-na waa doctorate-kii oo iyagu markaas way ka badan tahay waa 42 bilood halkaana deadline-kii baa kugu xiran scholarship-ka goorta uu xirmayo halkaana qaybtood jaacada qaybtood website-yada ku qoran laakiin dhib ma laha halkaana right click dhahaysaa oo aad haddii ilaahay ku ogol yahay jaacadii toos kala xiriiraysaa mar kale haddaa youtube-kayga ku laabatid ebos isagana scholarship baan ka sameeyey waa kan haddaad ebos waxaan ka sameeyey video dabcan ku sharaxaya step by step saa u xarayn lahayd marka isagana eega scholarship-ka labaadna waxaan filaya isaguna in clear yahay markastana website-ka ku laaban kartaa requirements-ka iyo details-ka kale qaybta website-kana waa ka helaysaa qaybta jaacadahana waa ka helaysaa marka xog la-aan kuma hayso laakiin wixii aanan fahmin qaybta commentiga igu soo weydiiyey markasta labada scholarship baan rabay maanta inaan la wadaago sidoo kale waxaan sanadka isaguna hadda furan scholarship la yiraahdo leadership for Africa oo sanadadii hore Soomaaliya marmar lagu soo dari jiray laakiin sanadkan macal asaf ayaan dar Soomaaliya lagu ma soo dirin oo wadamadan kaliya lagu daray Burundi, Kenya, Rwanda, South Sudan, Uganda baa lagu soo daray marka insha Allah waxaan rajaynaynaa sanadada soo socota lagu soo dari doono Soomaaliya laakiin hadda laftirkeeda dadka ku dhaqan wadanka Kenya iyo Uganda iyo asylum seekers-ka holding refugee status dalka akhrisid hold refugee status haystana degree jaacadaha jarmalka laga aqbali karo barnaamijka si xareyn karaan marka laba shardi ah ama inuu musitiisan yahay qof wadamadan ka soo jeeda degan wadamadaas ama qof qaxooti ku ah inuu yahay marka haddii aad qaxooti tahay degree haysta wadamadan degan ku sugan ka haysta halkan sharci qaxootinimo waad xareyn karaysaa barnaamijkan si dabagal laakiin Soomaaliyeena caadiga passport Soomaaliga wata sanadka waan ka reebay insha Allah sanadada dambe rajeynaa in aan ka helno marka dad scholarship marka website-kan iyo platform-kan weyn baaritaana ku sameeya oo scholarship-ka eega aniguna hadda aan arko waan soo dhigi doonaa labada scholarship baa u waaweyn Helmut Schmidt iyo EBOS isha ku haya wixii su'aalo qabta qaybta commentiga igu soo weydiiyo I'm back insha Allah waan soo badin doonaa fursado badan baan soo wadaa isbuucii soo socota hubi inaa marka muuqaalka like iyo share tiraahdo si aysan ku dhaafin fiidiyoda soo socda maadaama muddo ka maqan waxa laga yaabaa inaadan arag fiidiyoda marka gambaleelka u furo lana si wadaag muuqaalkan walaalaha is leedahay way ka faa'iideysan karayaan ilaa kulankan kan xiga waa Yuusuf Shirooyin leh isma dhaafin assalaamu calaykum